kulantisan saaxiibayaal meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogtaan idil ahaantiina waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida channelka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Generaal Biixi oo heegan buuxda geliyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dalalka ay ka socdaan dawladaha ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ka tirsan howlgalka AMISOM oo ka shiraya waxa ay ka yeelayaan go'aanka dawladda la xiriira inay dalka isaga baxaan guddigii uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble oo gaaray magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bogan doontaan tabinteena tooska ah wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida channel waxaynu idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka noo saartaan channelkeena oo aad ku soo biirtaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada sida joogtadana halkan aynu ugu soo baahino noqon daawadaha ugu horeeya ee la xogaha wararkeena daawada qodob walba oo warkeena kamid ah aragti ayaad ku leedahay qaybta hoose inoogu reeb aragtidaada haynu ku bilaawno Generaal Biixi ayaa heegan buuxda waxa uu geliyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Generaal Maxamed Tahliil Biixi ayaa kormeer ku tagay gudaha deegaanka Dhaghaye oo hoos tagta degmada Hobyo kadib markii ay al-shabaab shaaciyeen in ay qabsadeen deegaankaasi taliyaha ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan halkaas kuwaas oo beeniyay warka ka soo baxay ee al-shabaab ee sheegaya in ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi oo ah mid ka mid ah deegaanada ugu amniga wanaagsan sidoo kalena ugu istiraatiijiyada wanaagsan ee gobolka Mudug Generaal Biixi ayaa socdaalka ku maray qaybo badan oo ka mid ah deegaanka iyo saldhigyada ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ku yaala duleedka Dhaghaye ee gobolka Mudug sidoo kale waxa uu kula dardaarmay inay xoojiyaan dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada ay ka wadaan halkaasi xaaladda ayaa aad u kacsan waxaana dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan in dagaal uu dhaco isla markaana halkaas ay waxyeello ka soo gaarto maadaama dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo muddooyinkii la soo dhaafay halkaas waxaana halka ka jirta howlgallo ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug si kastaba taliyaha ciidamada xoogga dalka oo halkaasi kula hadlay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa faray inay heegan galaan isla markaana ay u diyaar garoobaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo si siman looga bilaabi doono deegaano iyo degmooyin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug dalalka ay ka socdaan ciidamada AMISOM ayaa waxay ka shirayaan go'aan ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo la xiriira in dalka isaga baxaan AMISOM guud ahaan khubaro farsamo oo ka kala socda dawladaha Afrika ee ciidamada qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxa ay kulan wada tashi ah ay ku yeesheen caasimadda dalka Kenya shirkan waxa ay uga wada xaajoonayaan qorshaha guud ee howlgalka AMISOM iyo sidii ciidankooda uga bixi lahaayeen Soomaaliya dabayaaqada sanadkan 2022 kulankan waxaa la isku afgartay in dalalkaasi mowqifka guud ay ka istaagaan marka ay ciidamada isku dhafka ah ka bixi doonaan Soomaaliya dhamaadka sanadkan 2022 go'aankaas ayaa la gaaray muddadii uu shirkaasi ka socday Kenya halkaas oo loogu xoojinayo howlgelinta ururka midowga Afrika ee AMISOM kadib sanadkii 2021 ciidamada nabad ilaalinta AMISOM waxa la rajeynayaa in dalka Soomaaliya ay ka huleelaan bisha December 31 ee sanadkan haddii aysan golaha ammaanka ee qaramada midoobay u codeenin muddo kordhin kale oo joogto ah oo AMISOM ay Soomaaliya heli doonaan dhinaca kale khubarada farsamada ah ee ka kala socda dalalka Afrikaanka ah ee ciidamada ka joogaan Soomaaliya waxay ku baaqeen ka hor inta aan la gaarin dhamaadka xilliga howleedka AMISOM in ay ka wada tashtaan isla markaana wadajir kulan ay u yeeshaan ururka midowga Afrika IGAD qaramada midoobay gudiyada dalalka ay militariga iyo booliiska ka joogaan Soomaaliya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo xubnaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya ugu dambeyntii taliska AMISOM waxa ay soo dhaweeyeen codsiga soo jeedinta ah ee ku aadan in loo wareejiyo howlgalka midowga Afrika iyo qaramada midoobay si loo xoojiyo deganaanshiyaha dalka Soomaaliya midowga Afrika iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa qorshahan ugu dambeeya go'aankeeda qaadan doona
iyadoo ay xusid mudan tahay in xubnaha beesha caalamka qaarkood ay dowladda Soomaaliya ay kala hadleen sidii ciidamada AMISOM looga saari lahaa Soomaaliya maadaama Soomaaliya iminkan ay yeelatay ciidamo awood leh oo ku filan hanashada sugidda amniga guud ee dalka. guddigii uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble waxa ay gaareen magaalada Garbahaari ee xarunta gobolka Gado. guddiga dib u heshiisiinta ee gobolka Gado uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta gaaray magaalada Garbahaari ee xarunta gobolkaasi. guddigan oo ka kooban xubno ka kala socda maamul goboleedyada dalka marka laga reebo kan Jubbaland ayaa magaalada Garbahaari ka bilaabay la tashiyo ku aadan sidii dib u heshiisiin loogu dhex abuuri lahaa bulshada gobolka. wadahadalada ka bilowday Garbahaari ayaa waxaa saldhig u ah sidii magaalada Garbahaari loogu diyaarin lahaa ka qaybgalka doorashada loo dhan yahay ee lagu qabto magaaladaasi. tegitaanka guddiga ee Garbahaari ayaa ku soo aadeysa xilli maamulka gobolka Gado ee taageersan dhinaca dowladda Soomaaliya ay sheegeen inuusan wax xiriir ah kala dhaxaynin hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana ay fursad u siinayaan inta uga hartay waqtigiisa oo ay ku sheegeen ilaa bisha soo socotay Agoosto. gudoomiyaha maamulka gobolka Gado Axmed Buule Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maadaama uusan xiriirka maamulkiisa iyo maamulka Kismaayo ama Jubbaland uu kala jeedo uusan wanaagsaneyn inaysan aqbali doonin guddiga doorashada ah ee heer dowlad goboleed ah oo laga soo magacaabo magaalada Kismaayo inay ka howlgalaan degmada Garbahaari ee xarunta gobolka Gado. khilaafka ka taagan kuraasta taala gobolka Gado ayaa ka mid ah sababaha dib u dhigaya doorashada Soomaaliya waxaana hadda laga warsugayaa natiijada ka soo baxda dadaalada ay wadaan guddiga uu ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay. Villa Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badneed geysay gobolka Gado waxayna gacanta ku hayaan gobolkaas waxayna kala wareegeen maamul goboleedka Jubbaland waxaana socda loolanka ku aadan 16 kursi ee taala gobolka Gado. doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhici doonta 10 Oktoobar 2021 sida lagu qoray heshiiskii 27 bishii May madaxda dowlad goboleedyada ra'iisul wasaare Roble ku dhaxmaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho inkastoo la qiyaasayo in waqtigaasi dib uga dhici karo jadwalka lagu heshiiyay sabab la xiriira khilaafka ka taagan xaaladda gobolka Gado iyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo aan ilaa imikan aysan dowladda federaalka xal u helin. saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida aad ka daawaneysaan waa inaga inta aad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xigeenteena dib u kulmi doona nabaadiino.